Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Yasmo channel. Insha Allah maanta waxaanu ka hadli doonaa samboorka. Samboorku waa xanuun ka mid ah xanuunada xajiinta ama allergiga sababa, wuxuuna ku dhici karaa da' kasta. Waxyaabaha kiciya samboorka waxaa ka mid ah boorka, qiiqa, daawooyinka qaar iyo cuntooyinka qaar. Maxaa lagu gartaa? Waxaa lagu gartaa calaamadaha hoos ku xusan, sida inuu qofku yeesho hindhiso, cuncun sanka ama indhaha, ama sandurdur qofka inuu yeesho oo sankii uu biyo ka imaado mar walba, cabursanaan qofkii inuu cabursan yahay, ama diif qofkii inuu sankii diif ka socdo. Samboorka wuxuu la socon karaa xanuunada allergiyada kala ah sida allergiga indhaha, allergiga maqaarka, allergiga hawo-mareenka ama neefta, ama loo yaqaano asmada ama xiiqda. Sidoo kale inkastoo samboorku uusan xanuun halis ah ahayn, laakiin waa dhibaato saameyn karta nolol maalmeedkaaga. Qofka isku og samboorka waa inuu iska ilaaliyaa waxyaabaha kiciyo sida busta, qiiqa, carafta iyo waxyaabaha kiimikada ah. Maxaa keena samboorka? Samboorka waxaa keena ama kicin kara hargabka, cimilada qabow, ama dadka qaar waxaa ku hay cimilada kulul, cunooyinka kulul ama cunooyinka dhadhanka leh, cabitaanada aashtada leh, dawooyinka sida aspiriinka iyo ibuprofiinka, dawooyinka dhiigkarka iyo dawooyinka sanka lagu buufiyo iyagana sidoo kale way kicin karaan. Waxaa kaloo kicin karaa isbedelada hormoonada jirka ku dhaca sida xilliga uurka, xilliga caadada dumarka, xilliga qaadashada dawooyinka ka hortaga uurka iyo walwalka loo qaato. Ma jiraan xanuuno kale oo xiriir la leh samboorka? Waxaa jira dhowr xanuuno oo ka dhalan kara ama xiriir la leh samboorka, waxayna kala yihiin hilibka sanka kasoo baxa oo loo yaqaan nasal polyp, caabuqa sanka ku dhaca, caabuqa dhagta ku dhaca oo loo yaqaano otitis media, xajiinta, iyo xanuunka loo yaqaano neefta ama xiiqda ama waxa lagu dhaho af Ingiriiska asmada. Sidee loo daweeyaa samboorka? Samboorka ma laga bogsado, qofkana kama baxo, marka uu ku kacsan yahay ayaa daawo dejiso ama damiso loo qaataa, waana sida lagu yaqaano xanuunada allergiga la xiriira. Waxaa jira daawooyin badan oo loo qaato allergiga iyo samboorka, waxaana kala hadli kartaa hadba dhakhtarkii aad la xiriiri kartid ama kuugu dhow. Ku dawee samboorka saliidda xabad-sooda loo yaqaano, iyadoo dad badan oo saliidas isticmaalay ay ku fiicnaadeen. Cilmi baaris lagu sameeyay 68 qof oo samboorka qabo ayaa waxaa lagu daweeyay saliidda xabad-sooda, iyadoo weliba samboorkii kaga guuray meesha awalba ay qaadan jireen dawooyinka dhowrkii bilood, weliba qaarkood waxa ay waxyeelo daawada ku reebtay. Cilmi baaristu waxay sheegtay in saliidda xabad-soodada subax kasta sanka duleelkiisa min 1 dhibic lagu dhibciyo iyadoo gadaal looga sii neefsanayo, waxaana la wadaa muddo 6 asbuuc ah, tan oo aad kaga raysan doontid in Ilaahay kaaga daweeyo samboorka. Ilmaha yar ha ku dhibcin saliidda xabad-soodada ah ee labada farood foodooda saliidda mari, kadibna waxaad ku aadinaysaa labada duleel ee sanka, waxaana ilmaha amraysaa inuu neefsado haddii uu yaryahay. Haddii uusan amarkaaga qaadan karin, ku hay sidaa muddo 1 daqiiqo ah, isaga si aayar u neefsan doona. Waana muhiim in ku daweysid ugu yaraan 6 asbuuc si loogu garto wax isbedela, kuna dadaal 1 maalin inaadan ka ilaawin. Insha Allah maanta topic-keena intaas ku saabsan yahay aan kaga hadlaynay samboorka iyo waxyaabaha keena. Insha Allah waa inoo iyo muuqaalka xigi doona.